madaxweynaha jamhuuriyadda mudane François Hollande waxa uu shir jaraa'id ku qabtay qasriga madaxtooyada ee Champs-Élysées madaxweynaha ayaa si kulul uga hadlay arrinka maanta ka dhacay Charlie Hebdo. Reconnaissance aux familles, aux éprouvés, aux blessés, aux proches, à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat. Ce sont aujourd'hui nos héros. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. Il y aura à 12 h un moment de recueillement dans tous les services publics. Et j'invite toute la population à s'y associer. Les drapeaux seront en berne 3 jours. Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création. C'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. C'est l'idéal de justice et de paix que la France porte partout sur la scène internationale. Et ce message de paix, de tolérance que nous défendons aussi à travers nos soldats pour lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme. La France a reçu des messages de solidarité et de fraternité du monde entier. Et nous devons en prendre toute la mesure. Nous devons répondre à la hauteur du crime qui nous frappe. D'abord en recherchant les auteurs de cette infamie et de faire en sorte qu'ils puissent être arrêtés, puis ensuite jugés. goobtan Charlie Hebdo ayaa ah goob dhaqan iyo caado u ahayd dacaayadaynta iyo hadiya jaraa'idada islaamka iyo rasuulkeena suubana Maxamed sallallahu alayhi wa sallam. dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan dadyoogii geystay mashaqada tan. laba nin ayay ahaayeen kadib markii ay gaadhi madow oo loo yaqaan nooca Citroën ama markadiisu ay noocada tahay ay ku soo weerareen studio-gani. goobtan ayaa ah goob laga soo saaro dhaleecayn iyo hadiya jaraale fadeexad ku aadan ama dhanka ah islaamka caalamka iyadoo islaamka dunida oo dhan ka qaylinayay sanadihii dambeeyay. 12 qof ayaa ku dhintay halka wali dhaawacana aan la xaqiijinin. madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegay in 3 cisho ee soo socota calanka Faransiisku dhulka oo li doono iyadoo oo lagu bararduugayo dhabka meesha ka dhacay. dhanka kale madaxweynuhu waxa uu ballan qaaday in adduunku uu qaraar ka soo saari doono argagixisada iyo mashaqada ay ka dhex geystaan hadiya jeeraale waa sida ay hadalka u dhigeen wadamadooda dhexdiisa gaar ahaan reer galbeedka. Jamaal Cabdi Ibrahim, Aynaba News, France.